السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي كسر هذا القناة كنا فضلنا هدي أنا وعصبتها سبسكرايب إنه بالك نفرص زيادة نقطة دعوة كوات فيديو يدينا runtii aad baa ugu mahadsantihiin si aad sida aad noola socotaan maanta waxaa ka hadli doonaa insha Allah tacaala burobiyoodka iyo waxyaabaha u fiican iyo sida kuugu fududaan lahayd inuu Ilaahay ubad ku siiyo inta badan burobiyoodka waxay sababtaa infertility ama dhalmo la'aan sidoo kale waxay sababtaa inuu period ka khalkhalo oo ku imaanin dhowr bil kadib iska imaado taasina waxaa sabab u ah ugxaamaha halkaani ku xareysan oo yacni qarxi waayay ama soo bixi waayay laba ayay u qaybsantaa midna maxay ahayd dhasha ayay qofka ka daahisaa ama infertility ayay ka dhigtaa oo maxay ahayd periodka qofkaas uu ku dhacayaa laakiin uur ma qaadi karto qaabka kalena waxaa weeye periodka ayaa ka khalkhaldamaya qofka marka periodka loo soco qofkaasi Ilaahay ubad wuu siinayaa laakiin qofkani periodka ka imaanaya ama dhiigga caadada ka imaanaya ana haddana uur qaadi karin waxay u baahan tahay dawooyin in la siiyo lala tacaalo inta badan dawooyin dabiiciina way jiraan oo adiga aad samaysan karto sidoo kale fitamiino supplementiyaal ahna way jiraan marka maxay ahayd haddii aad la dhiban tahay burobiyoodka inta haysato burobiyood Allah ka caafiyo intaan haysan Allah kuma keeno laakiin waa xaalad uun iskaga imaata dumarka intay ku jiraan xilliga ay dhalmada ee dhalayaan ayay ku imaataa inta badan dumarku markay waayeeloobaan ama aysan dhalaynin kuma imaato marka gabdhaha xilliga dhalmada ku jira inta badan burobiyoodkana way ku dhacdaa inta badan waxaa sababi kara infection sababi kara sidoo kaleeto waxaa weeye ugxaamihii oo daciif noqdo halkaas ka soo bixi waayeen marka ugxaanta haday daciif noqdo halkaas ka soo bixi weyso halkeeda ayay ku jiraysaa halkeeda may ku badanaysaa marka kaniinigan aad u jeedaan folium zur ayaa la yiraahdaa waa kaniini aad iyo aad ugu fiican gabdhaha haysta burobiyoodka wuxuuna kuu sahlayaa insha Allah tacaala inuu Ilaahay ubad kugu siiyo wuxuu ka kooban yahay waa folic acid iyo vitamin D3 ayuu ka kooban yahay aad ayuuna kuu saacidayaa inta badan gabdhaha burobiyoodka haysta calciumka ayaa ku yar marka vitamin D3 gaani aad ayuu kuu saacidayaa waa 120 xabo kaniini ah 2 bilood ayaa qaadanaysaa maxay ahayd subax iyo habeen marka waa iska vitamin hadduu xitaa dhakhtar kuu qorin adiga waad soo iibsan kartaa haddaa meesha joogta laga helayo waad isticmaalaysaa marka maxay ahayd kaniinigan aad iyo aad ayuu kuu saacidayaa burobiyoodka ayuu ka saacidayaa maasha Allah ugxaamahaada ayuu fuul ka dhigaa wuxuu awood u siinayaa inay soo baxdo ugxaamta oo meeshii la rabay ay imaato kadibna Ilaahay ubad kugu siiyo vitamin D-gana yacni calciumka jirkaada ayuu maxay ahayd saacidayaa oo maxay ahayd vitamin D la'aan haddii aad tahay oo burobiyoodna ku haysato aad ay caqabad badan tahay vitamin D-ga qofka ku yaraado xitaa way sababi kartaa inuu burobiyood kugu noqdo oo calciumkaadi aad u yar yacni wax walba hadday daciifaan yacni meeshooda kama soo baxayaan meeshooda ayay ku jirayaan ku burburanayaan marka gabdhaha jecel inuu Ilaahay ubad siiyo inta haysan Allah siiyo inta haysatana Allah u barakeeyo marka gabdho haddii aad la dhiban tahay burobiyoodkani doonaysana inaad hooyo noqoto Ilaahay ha kaa dhigo sidaad jeceshahna Allah kuu sameeyo marka soo iibso kaniinigaas haddii aad laga helayo meelahaada waa folic acid oo 400 microgram ah iyo vitamin D3 waa isku jiraan marka waa labadaas uu ka kooban yahay kaniinigaasi aad ayuuna kuu saacidayaa insha Allah tacaala soo dhawaada ayaa idin leeyahay markale aad baa u mahadsan